bishan dulxajja waxay ka mid tahay bilaha xormada leh waxayna la gaar tahay inay xambaarsan tahay maalmo gaar ah iyo camalo waaweyn wuxuuna Allah subxaanahu wa ta'aala ku sheegay maalmahan ugu horeeya in ay aad u fadli badan yihiin walibana Allah baa ku dhaartay maalmahaas wuxuuna yiri بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر waxaan ku dhaartay waa bariga dharaarta subax arooriyeed waxaan kaloo ku dhaartay habeenada 10ka ah waxaan kaloo ku dhaartay shafciga maalinta 10aad maalinta gowraca waxaan ku dhaartay maalinta witriga maalinta 9aad ee Carafo haddaba ruuxa muslimka ah waa inuu ka faa'iideystaa maalmahan ugu horeeya bisha dulxajja oo uu sameeyo acmaal wanaagsan gaar ahaan acmaasha fadliga badan sida salaadaha waajibka ah oo loo kala hayo waqti hore laguna tukado jamaacada iyo in la badsado salaadaha sunnooyinka ah in la soomo 9 maalmood qofkii awooda rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid soomi jiray 9 maalmood ee dulxajja maalinta cashuura iyo 3 maalmood oo bil kasta ah si gaar ah in loo soomo maalinta 9aad waayo soomka maalinta 9aad ee Carafo aad ayuu u fadli badan yahay waxaana lagu dhaafaa dunuubta sanad la soo dhaafay iyo sanad soo socda nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay inaysan jirin maalmo uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amalka suuban ka jecel yahay 10kan maalin saxaabada waxay rasuulka weydiiyeen xataa ma ka fadli badan yahay jihaadka loo gal Ilaahay dartiis wuxuu ku jawaabay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xataa jihaadka loo gal Ilaahay dartiis marka laga reebo ruux la baxay naftiisa iyo maalkiisa ee aan midna kala soo noqon